horumarku waxa uu ka dhashaa bulshada dhexdeeda. Bulshadu waxay leedahay qaybo kala duwan. Waxaa ka mid ah hoggaanka dhaqanka. Waxay ahaayeen kuwa aan talada looga maarmin, waana guddoonka keliya ee ay Soomaalidu tiqiin, waana xeer beegti ay ku urursan tahay talada reerku. Waa albaabka ugu sahlan ee lagu nabadayn karo midnimada iyo walaalaynta dadka Soomaaliyeedna aasaaska u ah. Puntland isimadu heshiis ayay ku yihiin, iyagaana dhisay. Waxayna ahayd in lagu ururiyo talada dadka wada dhashay si isku midana loo horumariyo, ayna yeeshaan siyaasad midaysan oo ay ku kala nabad galaan, ciddii ku soo xadgudubtana ay si wada jira isaga difaacaan. Maamuladii hore inkastoo aanu horumar jirin, haddana way mideeyeen yuhuntii dadka. Waxay saldhigatay siyaasaddii Puntland Garowe. Waxay xarun u noqotay aqoontii iyo dhaqankii farhareeri, gaalkacyo, ceerigaabo ilaa iyo adhaxda badweynta Hindiya. Puntland dadku waa wada dhashay, raallina waxay ka wada yihiin inay wax wada yeeshaan. Maamuladii hore waxa keliya ay ilaaliyeen intaasay ahayd. Maamulka hadda jira waa lagu kala aamin baxay. Maakhir muxaafid iyo mucaarad waxaa muuqata inaanay u kala duwanayn. midna wax uguma filna. Khaatumo warkeeda badaa. Garaadadii qoobay qaadaba Puntland u taagnaa ayaa laga sheegtay. Waxaan waxba xeerin iyo xeewal ayaa ku feegaray go'aankii garaadada. Maanta waxay taagan tahay tag ama joog. Isimada Puntland haddii aanay ka shirin oo xil iska saarin oo aydan wax iska odhan, waa godob aad dadkiina ka gasheen. Waxaad u gogol xaari kartaan oo diyaarin kartaan fursad lagu wada hadlo. Taleex taga oo weydiiya waxa ay tabanayaan. Buuhoodle waxgaradka jooga arka. Miyiga taga, maakhir iyo gaalkacyana wax weydiiya. Raas casayrna soo dhagaysta. Dadkan walaalaha ee wada dhashay ee taariikhda iyo karaamada Soomaaliya ku leh, faroole weydiiya waxa uu ka damcay iyo halka uu u wado. Waxaanuna rabnaa inay guddoonshaan talada isimadu oo ay turxaan bixin iyo garwadeen ka noqdaan aayaha iyo wadajirka shacabka. Waxaanan ku talinayaa culimada iyo ganacsatadu inay ku taageeraan, una suuro geliyaan qurba joogtu inay iska arkaan waxa jira. Waxa aynu maanta wax ka qaban karno, waxaan leeyahay u istaaga cid kasta oo dareenkeeda leh wadajirka iyo midnimada dadkiina. Waa baaq aan kula hadlayo garaadka, aqoonta iyo inta kalifan.